وإنجنير دار جامع ما قلبت waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo mowduuc aan u arko inuu muhiim yahay iyo xagal kale oo kamid ah xaglaha lagu toosiyo ama wax lagu tilmaamo inta badan waxa dhacday inaynu madaxda dhaliilo oo aynu dhaliil ku wadno sidanaad sameysay laakiin bal galabta waxaan jeclaan lahaa mid taa ka duwan inaan u soo jeediyo wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta mudane cali mareexaan waxa la wasiir hawsha aad haysaa ee aad qaranka u hayso ee aad ku magacaaban tahay waa xil culus oo aad weyn waa meelaha wadanku ka horumaro ama uu dib uga dhaco waa infrastructure wadanku dhan baad gacanta ku haysaa waxaad u baahan tahay in lagu taageero oo lagu toosiyo oo lagu tilmaamo waxaan anigu kala talinayaa dhowr qodob oo muhiim aan u arko anigu aan ku dhaliilayn laakiin ay tahay toosin iyo tilmaamid waxa jirta dhalinyaro aqoonta iyo asluubta ka aradan oo adiga kula shaqeysa dadkay kugu diraan waxay yiraahdaan anagu wasiirka wuxuu noo siiyay shaqada in aan qof bulshadii arag oo taas waxay ku tusaysaa inay ka hayrinayaan dadka oo ay gud madow iyo boqolo ku qodayaan oo ku ridayaan wala yaqaana inaad wax wanaagsan soo qabatay markaad baarlamaanka ku jirtay waxaad ahayd xildhibaanada ugu firfircoon isla markaana ugu wax qabadka badan ee bulshadu u siman tahay anigu waxaan ka codsanayaa qodobo aan dhaliilahayn oo ah mudane wasiir xulo adoo bulshada aan qabiil u eegaynin oo aan deegaan u eegaynin oo aan afkaar u eegaynin waxaad u eegtaa aqoonta iyo xirfadda hadba meesha aad u xulanayso shaqaalaysi bulshada Soomaaliland waxbay baratay dhalinyarada boqolkiiba 60 baa wax bartay si wanaagsan u bartay intii uu aqoonta liitay ee iskuuladii ka saaqiday ee jaamacadii ka saaqiday reerahoodii ka saaqiday kuwa waxba shaqada ha ka eriyeen laakiin aamusi uuna waxaad ku tiraahdaa bulshada haygu dirina ee hawshiina wata iyo waxaan idin dira qabta qoraalkooda qalqalooca hadalkooda qalqalooca afkaartooda qalloocda waxa weeye kuwa lagu saliday oo masaa'ib ah oo dadka ka caydinaya oo taageerayaasha ka eriyay mustaqbal wanaagsan baad leedahay runtii oo waa jeclaan lahayn inaad halka ka sii socoto laakiin waxaan jecel lahay inaad hagaagto oo toosnaato oo aad hogaamiye wanaagsan oo bulshada u dhaxeeya noqoto dhaliil ma hawa toosin insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa inaad aragto oo qaadato oo hoosta ka xariiqdo qodobada aan ku sheegay waa dad aqoon leh oo karti leh oo xirfad leh oo wax kula qaban kara oo wasaaradda muhiimka ah hayso wax ka qaban kara oo qaranka u shaqeyn kara oo afkaar wanaagsan leh oo caafimaad qabta leh inaad xulato oo wasaaradda qorto oo ay kula shaqeeyaan ayaan ka codsanayaa iskana aamusiiso si aan loo moodin inaad jeceshahay adigu amaanta waxay had iyo jeer u muuqdaan qoladii la oran jiray guul wadayaasha oo anigu aan u bixiyay guul wasakheeyayaal marka wasiiriyaan guusha ka wasakhayne fadlan iska aamusi waanan ku salaamaya adiga iyo qaranka oo dhan baan salaamaya bulshada jamhuuriyadda oo dhan baan salaamaya